haddaba goordhoweyd ayaa wariyahayaga magaalada colombos cabdikaafi yuusuf aadan waxa uu waraystay xasan cali cumar oo ah guddoomiyaha jaliyadda soomaalida ee colombos kana mid ahaa hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee booqday qoyska uu ka soo jeeday ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey weerarkaasi. ugu horreynna waxa uu kaafi weydiiyey dareenka qoyska sida uu ahaa. waxa weeyaan horta waan qiyaasi karnaa qof kasta oo maxaa la yidhaahdaa uu ka dhinto ama dhibkan oo kale ku dhaco sida ay dareemayeen marka faamiligu way dareemayeen oo waxay dareemayeen number 1 in wiilkoodii ka dhintay midda labaad waxay dareemayeen arrinkaanu lugta uu ku yeelan kara dadka Soomaalida runtii oo iyaga ruuxooda u naxsanaayeen waxay kaloo oo dareemayeen oo ay ka hadlayeen sida wiilkooda uu ahaa ayuu sayna leeyihiin wiil fiican oo aysan ka filaynin in uu arrimahan ama falkan oo kala sameeyo. waxay dhaheen subaxii iskuulku aaday caruurba iskuul geeyey si caadiya nolol caadi ku noolaa dhibaato ma qabin wadankan wuxuu joogay 2 sanadood iyo ka yar sanadka saddexaad jaamacadda dhiganayay micnaha wiil dadaal badan buu ahaa oo waxbarashada jecel marka wiilka iskuulka soo aaday waxa uu yimid barqadii maxaa la yiraahdaa hay'adaha nabadgelyada kadib markii fal uu ka dhacay jaamacadda dhexdeeda marka runtii waxay dareemayeen xanuun aad iyo aad fara badan anaguna uma naantigin wax kale tada kulli un waa dad na yaqaano way communitygan mas'uulkana wana soo waceen daas way aan tagmay way ku soo waceen waad u tagtay waxa u yimid hay'adaha ammaanka maxay weydiiyeen oo ku sheegeen saacado badanna way haysteen walaalkay horta waa way horeysaa hadda inaan maxaa la yiraahdaa waxay weydiiyeen ama anigu aan ka ogaado wax ama iyagu ay ogaadaan sababtoo ah weeyaan wali waxa socda baaris hay'adihii nabadgelyada baa baaris ku wada waqti dhan bayna geliyeen mana weydiin su'aalahaas waayo anigu xaq baan u leeyahay inaan weydiiyo marka laakiin waxay ii sheegeen in waqti dheer maxaa la su'aalo la weydiinayo de waa garan kartaa waxaan kala markay dhacaan wax sahlan ma aha waan gartay cabdirasaaq qof noocee ah baa lagu tilmaamay baa tiri ninkan wuxuu dhameeyay 2 years of college wuxuu dhameeyay oo associate degree ka qaatay meel la yiraahdo community college kabacdina jaamacadda tagay sanadkiisii koowaad bay ahayd taas waa mid faamiga waxaan kaloo arkay niisyada kale ku arkay journal oo maxaa la yiraahdaa waxba ku qoray 2 sano ka hor oo ka caawinayo leeyahay meel aan ku tukano baan u baahanahay meelaan ka heli karno meelaan ku tukano maxaa la yiraahdaa had iyo jeer dhibban kuwa waxyaalahaasna waan arkay oo journalada ay qoreen dhammaan waxay yihiin qoysku ma ku sheegan markaad u tagtay wax cabasho ah ama dhib ah oo ka tirsanayay jaamacadda ama laga yaabo inay dhibaatadaani ku dhalisay inuu sameeyo really faamiligu wiil dad waan Soomaaliyan waynu nahay bini aadamna waanu nahay had iyo jeer anagu caruurteena way noo hagaagsan tahay marka faamiligu dhib badan kama sheegayn wiilka waxaan wanaag ahayn kama sheegaynin in qofka bini aadamka ah waxa uu ku fiican yahay haddii aan la waxbarasho haddii aan lahayd dhaqankiisa culture-kiisa diintiisa wax walbaba waxay yiraahdeen wiilku wanaagsan buu ahaa waa hooyo marka hooyadu wax fiican bay nooga sheegtay wiilka marka inkastoo tiri mararka qaarkood maalmihii ugu dambeeyay wuxuu ka cabanayay maxaa la yiraahdaa xoogaa waxbarashada ku adkayd oo waxsaas uu sheegay dhowr jeer bawtay bal maxaa xigi doono oo tilaabo ay qaadi doontaan madaxa jaariyadda iyo waalidkii ama qoyskii uu cabdirasaaq ka soo jeedaa dhashay meeshan waxaa yaala runtii horta waqti waa waqti aad u xun oo marka loo fiiriyo xilliga lagu jiro election baa laga soo baxay electionka waxyaalaha laga maxaa leedahay dadka qaarkood ay ku ordayeen ama ay sheegayeen waxaa ka mid ahaa in maxaa leedahay muslimku uu dhibaato yahay runtii arrinkan aad buu u yahay noogu xanuun badan yahay waayo wadankan waa meeshaan u nimid inaanu degno oo caruuraha ku korsano waxna ku barano dhibaatana kuma qabno marka Ohio ma aysan ahayn meelaha hadii jeer leeyahay caruuraha ka taga oo wadanka ku laabto wax qarxiya waxaan anagu aad uga taxadari jirnay si mugli inaysan u dhicin dhibaato oo hadii jeer waxaan la socon jirnay maxaa la yiraahdaa caruuraha iyaga iyo hadii ay jiraan maxaa la yiraahdaa qolooyin raba inay dhibaato ku sameeyaan marka arrinkan waa arrin nagu cusub waxa aan sameyn doonaa marka waxa weeyaan kolley faamiligu waxaan way dhaceen annagu wixii fal oo runtii xumaana oo dhacdadeed sidaan kale waanu cambaaraynaa waana ka xunahay jaamacadana waxaa dhigta caruur Soomaaliyeed ka badan 1000 baa dhigata cabsidayna abuuraysa oo dadku waxay u maleynayaan dad bahalaho Soomaalida qofkii agdagan baa iyagu cunaya oo runtii waa dhibaato weyn oo hadda taariikhda Soomaalida galaysa in maartay la aamini waayo marka
waxaan rabnaa aan samaynaynaa galabta haddii alla war murtiyeed 6 waxaan u yeeraynaa idaacadaha insha allah aan la sheergalayna fikirkaan qabno oo ah war annagu Maraykan baan nahay waddankan baan degannahay mana nihin dhibaatana waddankan kuma nihin sababto waxa weeyaan meeshan waxaa jira 2 muuqaal baa jira muuqaalka annagu aan aaminsanahay oo ah in waddankan aan si nabada ku joogno oo aan ognahay qof kasta xataa Soomaaliya jooga inuu jecel yahay halka inuu yimaado iyo muuqaal aan miidiyaha ama dad siyaasiyiin ay wadaan oo la leeyahay maxaa Soomaalidu wasaas weeye marka runtii waanu ka xunahay waxa dhacay talaabadan qaadatan insha Allah waxay noqonaysaa inaanu la shaqeyno community wada jir ahaan waa tahay bal waxaad iga warantaa dareenka dadka Soomaalida ah ama jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Columbus Ohio maxay hadda dareemayaan waxay dareemayeen shalay markii arrinkan dhacay qof kasta oo alla kulanto oo markii hore maanan ogeyn aroortii 9 markii subaxnimo markay ahayd baa idaacadaha waxa soo galay leeyahay toogasha ka socota jaamacadda dhexdeeda qof walba maxaa la yiraahdaa hagalo ahna islaaliyo jaamacadda iyo iskuulada u dhawaa caruur badan oo Soomaaliya dhiganaysa marka qof walba caruurtiisa wacay waxa la yiraahdo qof walba ilaaliyo nabadgelyada kabacdi qof walba wuxuu leeyahay ilaahu Soomaaliya ka dhigin ereygaas qof walba adeegsanahay waayo iskuulkan 50,000 oo qof baa dhigata in marka wiil Soomaali wax ka sameeyo runtii waa wax aad iyo aad u yar probability qiyaasi marka community wuxuu dareemay dad baa xanuunsaday shala oo ii sheegay dumar baa yiri wax xanuunsan calooshana laga qabtay dad baa shaqada ka soo baxnay arrinkan wuxuu noqday arrin argagax runta markaan ku sheego community ku noqday waayo dhibaato nagu filan waa soo marnay maxaa la yiraahdaa waqtigaana waa inaan awood u helnaa inaan ku noolaano nolol xayaat oo nabadgelyo leh oo aan noolaano dadka bini'aadamka aan u nimidaan la degannahay xasan cali cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee Columbus kana mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee boqday qoyska uu ka soo jeeday ninkii shalay dadka ku weeraray Jaamacada Ohio State University ee magaalada Columbus waxaana uu u warramayay wariyahayaga Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan